بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad moodaa xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro inay dhiilo colaadeed ka wado gobolka Togdheer. runtii warar dhiilo colaadeed leeba halka iga soo gaadhaya gobolka Togdheer deegaanada Cali Sayd. saa la socotaan ba deegaanada dad hela oo deegaanada wada dega ayaa isku dilay oo halka dhibaato bari ku dhex martay. heshiis baa dadka la dhex dhigay deegaanka Cali Sayd ee gobolka Togdheer. magaalada Burco baa la isugu yimi, hadday aqoonyahan noqoto, hadday siyaasiyiin noqoto iyo hadday ganacsato noqotoba. halka waxaa lagu saxeexay heshiis dadka walaalaha la dhex dhigay. heshiiskaasina heshiis cad buu ahaa oo cid walbaaba og tahay. wararku waxay igu soo gaadhayaan si kastaba ha u dhacdee in daraf ka mida darafyadii lagu heshiisiyey heshiiskii uu ka baxay. arrin aan laysku ogeyn oo ah in deegaanadan wax barkadaa laga qodin uu ka qotay, wuxuu doono uu ka sameeyey. sidaa la ajligeena ay habboon tahay dadkii berigaa heshiiskaa joogay waxgaradka iyo odayaasha iyo ganacsatada lahaa in wixii heshiiskaa ka baxay tallaabo laga qaado, oo dowlad iyo xukuumad iyo shacabba wixii heshiiskaa dhexdhexaadinta ah ee dadka sulxa looga dhex sameeyey ciddii jabisa, cidday doontaan noqotee, in gacan la saaro oo xukuumadda iyo shacabkuba gacan saarto oo xukuumaddu ay ilaaliso wixii lagu heshiiyey ayaa muhiima. laakiin waxaa igu maqaalaa xukuumaddan maanta Cabdiraxmaan Ciro inay iyaduba qayb ka tahay in deegaanada ay dib isqabsi iyo colaado sokeeye ay dib uga bilaabmaan qaabka ay wax u wado. sababtoo ah halkii ay ku ilaalin lahayd heshiiskii hore dadka ku ilaalin lahayd oo ciddii heshiiskaa jabisana tallaabo ka qaadi lahayd, waxaa la moodaa labadii dhinac inay dhinac waxaa weeye u dowladoonayso oo barashar iyo culeys la saarayo. waxaa igu maqaalaa guddi inay deegaanada u baxayaan arrintaa ku saabsan oo maayarka berbera ina dable iyo kooxo kale oo is-abaabulay ay halkaa tegayaan. ujeeddaduna ay tahay heshiiskii hore in wax laga bedelo oo dadka deegaanka ku nool waxaa weeye wixii hore ee loogu heshiisiyo waxaan ahayn meesha lala yimaado, iyadoo la iska indhatirayo ciddii heshiiska ka baxday ee heshiiskii hore lagu heshiiyey ka baxday. arrintaa waanu ka degaynaa. Cabdiraxmaan Cirana waxaanu leenahay awdal iyo salal baad ku fashilantay oo maanta xabadi ka dhacaysaa, sanaag bay ka dhacaysaa, sool bay ka dhacaysaa. Togdheerna ha ka bilaabin, yeysan dhexdana ka bilaaban baasho. kadaa Cabdiraxmaan Ciro waxaad wado dadka walaalaha ee helay Cali Sayd degan heshiis bay hore u galeen, heshiiskiina hala fuliyo uun. ciddii heshiiska ka soo baxdana tallaabaha laga qaado, loo wada dhan yahay. intaasaan kusoo koobaya hadalkayga. halkan waxaan fariin uga dirayaa ragga salaadiinta ah ee runtii uu odayga u yahay Suldaan Axmed Qabile iyo Suldaan Fariid. ragga noocaas ileen salaadiintu iskuma jiraan. salaadiintu waa salaadiin dadkooda la dareena iyo salaadiin shaqo tagay oo mushahar qaata. kuwa mushaharka Ciro ka qaata la hadli maayo ee shilimaadka yar bishii la siiyo. waxaan la hadlayaa kuwa damiirka leh ee Suldaan Fariid ka mid yahay, ee Suldaan Qabile ka mid yahay. ragga noocaasa ayaan leeyahay sida ugu dhaqsaha badan gobolka Togdheer u gaadha oo heshiiskii lagu heshiiyey ee hore loogu heshiiyeyna hala fuliyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.